dad badan oo waxaan arkay ama baraha bulshada kule ama aniga si toos ah weydiiyo leh Cabdiwaduud iyo Faad Cinshir iyo Cabdi Samad ma ka soo muuqan doonaan gobolka Muqdisho fikirka ka dambaysa in maanta koobka inta laga ku guuleysato waliba markii ugu horeysay taariikhda Hargeysa maxaa loo sababeyn karaa Jamaal waxaan filayaa tartanka gobolada dadaan iska soo horbaxnay in cadow isku noqon doono idil ahaantiin meel walba naga daawanaysaan soo dhawaada waxaan ku sugannahay caasimadda Hargeysa barbarkayga waxaa fadhiya Jamaal Cabdi Axmed waa tababaraha Goodir in badan wuxuu soo ahaa macallin soo leeliya kooxdaasi Jamaal wuxuu ka soo mid ahaa ciyaartoydii soo ciyaartay xulka gobolka Muqdisho 2007 waqtigaasi oo Charles aan ugu helin heerka koobaad balse 2011 xulkaasi u saftay isla maantana xulkii uu macallin ciyaartoy ka ahaa macallin looga dhigay kubadda cagta ayaa la isbedbedelka Jamaal ayaan weydiinayaa bal dareenkiisa ku aadan xilka cusub ee loo igmaday isagoo ku soo guuleystay mihnadiisii heerka koobaad tababaranimo horyaalkii ugu horeeyay caasimadda Hargeysa muddo badan si joogta looga qabto iyo sidoo kale championkii ugu horeeyay wadanka laga hirgeliyay labadaba gacantiisa ku hantay Jamaal Cabdi Axmed ku soo dhawow daawadayaasha ku daawanaya iyo taageerayaashaydii ah adiga iyo tiimkaagaba su'aalo badan bay isweydiinayaan intaynaan u gelin su'aalaha bal ugu horeyn dareenkaaga waa sidee xilkan cusub ee lagu magacaabay bismillaahi raxmaani raxiim sakaliya hardoon waa ku dhawey walaal run ahaantiina waan ku faraxsanahay inaan noqdo tababaraha gobolka Muqdisho runtii aan ka mid ahaa ciyaartooydii hore u soo maray inaan maantana macallinka laylinaya aan noqdo sanadkan insha Allah aniga iyo macallinka xigeenkayga runtii dareen gaar ah inoo tahay waan ku faraxsanahay Jamaal dareen noocay ay ku sameynaysaa xulka aad ciyaartooyga ka noqotay caasimadda waxa lagu tirayaa gobolada kale la mid ah waa ciyaartooyda ugu baaxadda badan baa ku nool ciyaartooy Jaanis badan oo laga yaabo qaarkood inay Jaanis yeelan xulka ka soo muuqdaan xulka inta uu safanaysan ay kooban tahay xulka baaxadda loo mar ciyaartooy ka soo ahayd maantana qaaday culayska inta leeg baa ku fulay sidee baad u arkaysaa maxay kaaga dhigan tahay xulkii shalay ciyaartooy ka ahayd maanta tababar ka noqotay wallahi wada muhiimad weyn bay tahay runtii waxa cadeynaysaa inaan shaqo fiican ka qabtay kooxda ciidanka booliiska iyo horyaalkii maadaama la igmaday inaan noqdo tababaraha gobolkan ku nool nahay caasimadiisa aan ka deganahay runtii waxaan rajeynayaa saad ka dhawaajisay laacibiin badan oo tobanka kooxood ee heerka koowaad ciyaartooygeeda nin walba wuxuu rajeynayaa inuu ka mid noqdo gobolkan tartanka gobolada soo socda runtii waxaan rajeynayaa inaan dhammaan cadaalad u sameyn doono oo ciyaartooyo badan oo gobolada kale u ciyaari jiray sanadadii ugu dambeeyay ee runtii ka soo muuqan doonaan caasimadda maadaama ay caasimaddu mar walba tahay priority-ga koowaad laacib walbana ku xisaabtamaya inuu mar un ka soo muuqdo ciyaartooyga u dhalatay magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda runtii waxaan rajeynayaa inaan ku soo celin doono inay ciyaartooy walba iska dhex arki karaan oo u qalmo inuu ka muuqdo caasimadda waxaan rajeynayaa inaan ku soo celino tartanada guulihii ay gaari jirtay runtii oo Muqdisho yahay gobolka ugu guulaha badan la koobka gobolada waxaan rajeynayaa inaan mar labaad ku guuleysano iyadoo 3 gool oo hore haysteen inaanu afreeno insha Allah sanadkan Jamaal ciyaartooy macallimiin badan baa ku nool caasimadda xulasho gooniya maxaad leedahay waad ku mutaysatay in culayska maanta Charleska badan inta leeg aad miisaanka inta leeg aad Charles weeshay ugu horeyn horta Ilaahay baa mahad leh in lagu maamuusaano waxa ku xirantoon dareen dadka ka mas'uuliyiinta maamulaya meesha markaa inay ka helaan shaqada qabatay runtii waxaan rajeynayaa inay qayb ka tahay guulihii kooxda ciidanka booliiska ku guuleysteen horyaalka iyo championkii sanadkiina dhaafay haddana ay kooxda ciidanka booliiska hogaaminayso horyaalka caasimadda runtii shaqada aanu qabanay koox ahaan ayaan filayaa inay ii suura gelisay in maanta la magacaabo tababaraha gobolka Muqdisho sirta ka dambaysa in maanta koobka inta laga ku guuleysato waliba markii ugu horeysay taariikhda Hargeysa maxaa loo sababeyn karaa Jamaal waxay kooxda kaliya ciyaartooy uga yimaadaan gobolada kale waliba inta ugu badan maxaad ku sababeyn kartaa runtii waxaanu qaadanay ugu horeyn marka hore inaanu falsafadeeda ka dhigno inay kooxdan noqoto koox aan cid gaar ah lahayn ama xaafad ka tirsaneen ama cid lagu tirin saasi darteed waxaanu door bidnay inaan ciyaartooyo muhiimka ah gobolada kale aanu soo qaadano sida ciyaartooyda Burcaan ka soo qaadano 3 ciyaartooy maraya maanta gobolka Boorama oo ciyaartooy ka keenay
gabilayo muddo badanba noo ciyaari jirtay runtii iyaguna kooxda ku jira waxaanu rajaynaynaa inaanu ku guulaysano inaanu isfahansiino ciyaartoy maanta burcad degan iyo mid hargeysa degan iyo mid boorama degan inay one team matalaan runtii waxaan rajaynaynaa sanadkan inay naga soo dhex muuqdaan ciyaartooyo gobolka Sanaag iyo Soola iibabkii socday waana noo suuragali weyday dhaqaale ahaan runtii laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay laacibiin gobolada shishanay ay ka soo muuqdaan kooxda ciidanka Bileyska anagoo arkan oo kooxda ciidanka Bileyska mar walba inay tahay koox cid walba u furan oo la cid lahayn oo laacib wal oo ama dalka gudihiisa joogo gobolka doonaha ka deganaade uu chance u heli karayo inuu ka ciyaaro runtii kubadda cagtuna waa isdhexgal walaalayn iyo ismidayn dadka anagoo cid gaar ah oo aan u xirxiranay runtii ma jirto laacibkaan isnaano kooxda waxbuu taraya run ahaantii waan ku soo dhaweynaa laacibiin badan baa jira oo kooxdaada ka tirsan walow qaylada ugu badan markii lagu magacaabay ee ka imaneysay Burco ciyaartooy fiican baa ku ciyaara reer Burco iyo adiga waxay leeyihiin Jamaal wuxuu priority ka dhigan doonaa ciyaartoydiisa oo ciyaaraysa sidoo kale kooxdaadu ma u badan doontaa xulka waxyaabaha dadku isweydiinayaan bay ka mid tahay balabada su'aalood adigoo kala qaadaya midna reer Burco ay khaas u tahay oo kuwii ugu fiicnaa is leeyihiin waxay u ciyaar doonaan Maroodijeex midna ay tahay ma u badan doonaa xulka gobolka Maroodijeex kooxdiisa balabadaana ina daawadayaasha ka jahil saarto run ahaantii dad badan oo waxaan arkay ama baraha bulshada kulle ama aniga si toos ah weydiiyo leh Cabdi Waduud iyo Faad Cinshir iyo Cabdi Samad ma ka soo muuqan doonaan gobolka Maroodijeex uma malaynayo intaan joogo mana filayo inay ka soo muuqan doonaan waxaan rajaynayaa saddexdooduba sanadkii ugu dambeeyay labana waxay matalayeen Burco midna Saraar buu matalayay waxaan rajaynayaa inuu cudurada Burcadu jeclaado ka soo matali doono labadooduna Burcadoodii matali doonaan culaysna kuma saari doono runtii inay ka soo muuqdaan Maroodijeex sababtoo ah qof walba gobolkiisa ama ciduu jecel yahay ama wuxuu niyada ku hayo inuu taariikh ka sameeyo jecel iyaguna Burco anaguna inaan taariikh Hargeysa ka sameeyno waxaan filayaa tartanka gobolada dadaan iska soo horbaxno inaan cadow iska noqon doono sidii loo maareyn lahaa ama sidii Cabdi Faad Cinshir looga dhalin lahaa inaan qorsheeda dejin doono laakiin marnaba igama dhex guuxaso inaan iyaga keeno runtii mana rajaynayo inay iman doonaan intaan aanu gacanta ku hayo gobolka su'aasha kale hadaan ka jawaabo kooxda ciidanka Bileyska ma u badan doontaa u malayn maayo marka hore tartankii ugu dambeeyay koobka gobolada Maroodijeex ma badnayn waxa la ugu xantaa inaan mar walba anagoo u badnayn gobolka Hawd waxaan rajaynayaa haddii qof iyo laba kale oo dheeraadii ku biiraan way iyaga laftirkooda u obino waa gobolkoogii inay kooxaha kale laakiin runtii aanu dhex noqon doono inaanan kooxda ciidanka Bileyska aanan u sabbuudsin doonin waxaan rajaynayaa ciyaartooyga aan kooxda ciidanka Bileyska ee gobolada aan ciyaarinba inay fara ku tirsiyihiin laacib walba inuu gobolkiisa runtii inta badan ay ka soo matali doonaan baan rajaynayaa ciddii aanu uga maarmayno gobolkan ma weyno booskiisa waan u yeedhanayo waa caasimadda iyaga laftirkooda xaq bay u leeyihiin inay ka ciyaaraan ugu dambeyn taageerayaal badan bay leedahay caasimaddu waana gobolka ugu baaxadda weyn ee Soomaaliland marka laga hadlayo maxaad u rajaynaysaa taageerayaasha kala duwan sanadkii dhawata final bay yimaadeen sidoo kale 15kii chance may helin 13 baa ugu dambeysay maxaad u rajaynaysaa taariikh ahaan maxaad faraysaa iyo sidoo kale maxaad dib u xasuusinaysaa taageerayaasha kubadda cagta ciyaartooy baad soo ahayd tababaraad tahay maxaad kaga tegaysaa guud ahaan dadka ku daawanaya soo dhaweeyay sidoo kale baraha bulshada ku hadalhayay magacaabistaadii adigoo kaga tegaya fariinta ugu dambaysa ugu horreyn walaal ilaahay baa horta mahad leh guush iyo guuldaradana ilaahay baa haya waxaan rajaynayaa horta inuu ilaahay nagu guuleeyo tartanka waxaan iyagana u sheegayaa runtii gobolku 15kiyo ay ku hadheen isreebreebkii mooyaane waa tartan taariikh weyn runtii leh loogamana baqanayo inay taariikhdaasi lunto marnaba sababtoo ah waxay haystaan horyaalka ugu weyn dalka oo la yiraahdo horyaal heer qaran laacibiinta dalka ugu fiican baa caasimadda joogta oo ka ciyaaraysa oo matali doonta runtii waxaan u ballan qaadanaa run ahaantii inaanu u xuli doono tiim cadaalad ku dhisan koox walba dadka ugu muhiimsan inuu isleenahay gobolka waxbay u tari doonaan aanu ka soo xulano koox akhlaaqad ahaan iyo kubad ahaanba run ahaantii matasho laacib walbaan xulanano waxaan ku xulan doonaa horyaalkii dib u bilaabmaya inaanu eegno qaab ciyaareedkiisa kooxdiisa heerku ka taagan yahay muhiimku noo yeelan doono intaaba ugu horeyso akhlaaqadiisa qof wal oo kabileyskana aanu xulananaa waxa weeyaan akhlaaq baan ku xushaa inta badan
oo inaanu laacibku haddii la fadhiisiyo haddii la bedelo haddii maanta jaanis heli waayo aanu ciyaarin haddii uu ciyaarta isagoo isla waad fiicanta xitaa macalinku qaab kale u arko inay wuxuuba isku mid u ahaato inuu guusha ka jecel yahay haddii aanu guul wada doono anigii inamada aanu xulanana runtii waanu helinaa wixii alla aad ka baridaa ood ku dadaasho waad helaysaa waxaan rajeynayaa in koox akhlaaqadeeda iyo kubaddeeduba isku dheelitiranta inaanu kaxayno taageerayaashana waxaanu sheegi doonaa inay naga fishaan kubad qurux badan oo akhlaaqad leh guushana markaa dee taageeradooda iyo dee qadarka allu bay ku xidhantay waxaan rajeynayaa tiim qurux badan inaanu insha allah ka heli doonaa haddii la idhaahdo sanadkan jamaal cabdi axmed ayuu ahaa oo loo magacaabay maalmihii aynu soo dhaafnay tababaraha xulka gobolka Maroodijeex taariikhda markii ugu horeysay isagoo ka soo muuqan doona saaxadda koobka gobolada isagoo ah tababaraha xulka gobolka Maroodijeex aniga iyo jamaalba waxaan idinka tegaynaa intaan ku kulmino waraysi damo ka lamid ah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh